السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayga muslimiinta waa idin salaamayaa meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan. xalay waxaa idin magac dhabay qiso cajiib ah. inan yar oo muslimad ah sixir loogu aasay gurigeeda. ilaahay sabab iga dhigay in laga soo saaro ama uu ka soo dhamaado. gabadha muslimadda ah waxay ku nooshahay magaalada Nairobi, magaalo ama xaafad ka mid ah. gabadha muslimadda ah waxaan saarayay quraanka muddo 4 casho. maalinta shanaad baa ilaahay dhacdadan sababay. allana subxaanahu wa tacaala uu ku buriyay sixirkii loogu talagalay. sixirkana wuxuu leeyahay anwaacyo ama noocyo dhowr ah. qaar meetida la raaciyo qofka kaw looga siiyo la dilaayo, ilaah baa wax dilay subxaanahu jalla thanaa'u. iyo qaar la jeclaysiinayo qofka kale isjeclaysiina wuxuu doono ka samaysanayo. qaar lagu kala geenaya labadii xaasaskii iyo waxa weeyaan wixii ka dhaxeeyay ganacsi ee ummada ah. noocyo badan buu leeyahay, laakiin nooca gabadhan lagu sameeyay waxa uu ahaa nooc lagu soo jiidanayay maskaxdeeda. maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala maal uu siiyey, awlaad wanaagsanna ilaahay uu siiyey, nolosheedana ilaahay uu wanaajiyey, noloshii baa loo quuri waayay. waxa sidaa ku samaynayana ma aha qof ka fog, waa qof u dhawaansho badan, aadna ugu kalsoon tahay, weliba ganacsato ah. gabadhii markaan saaray ilaahay fadligiisa 4 maalmood, maalintii shanaad baan daarteedii gurigeeda uga tagay. markii quraanka ku bilaabay bifadli illaahi tabaaraka wa tacaala aayaadka sixirkaan akhrinayay ayay istaagtay. waxa jirkeeda ku jiray jin ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u jilciyey qalbigeeda ee ka naxay dhibaatada gabadha muslimadda lagu hayo. ayaa yiraahday sixirkii meesha ku jira aniga ayaa sheegaya. inantii baa soo kaxeeyay iyadoo korkeedii maskaxdeeda ay bedelan tahay. gurigeeda albaabka laga soo galo ganjeelka weyn hortiisa qayb yar oo meel ku yaalo ubaxyo iyo geedo yaryara baa waxaa la yidhahdaa halka kan baa lagu aasay. inantii baa guriga ku celiyey. waxaan soo qaatay badeel ama waxyaaba wax lagu qado. meeshii baan qoday. markaan qoday waxaan ugu tagay xirsigaas yar ayaad aragtaan oo bac ku duuduuban. markaan soo saaray bacdii aan ka furay, ayada daartii aan ku soo celiyey iyadoo meesha fadhiisan la soo laabtay. waxaan dalbaday in la ii keeno idan dab ku jira ama dab si aan ugu gubo, ilaahayna uu macnaha u baabi'iyey sixirkaasi. waxaad ogaataan sixir lagu sameeyay haddii ilaahay uu kuu sababay inaad aragto ama ilaahay ku tusiyaayo, haddaad gubto sixirkaaga meesha uu ku burburaya, caafimaad baa ilaahay kuu soo dejinaya. intaanan gubin ka hor baa warqadii furay. qaabkaasay u furan tahay waad aragtaan, baana ku qornaa. waxaan lagu qoray 2 aayaad oo ilaahay quraankiisa ka mid ah iyo magac loogu yeerayay jinka. waxaa aayadda koowaad ku qoran fa in tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim. aayaddaas ayaa 3 mar lagu qoray. waxaa lagu xijiyey wallahu min waraa'ihim muxiit bal huwa qur'aanun majiid fii lawxin maxfuud. 3 goor baa la qoray. kadib baa waxaa loo dhawaaqay magac ka mida magacyada jinka ee sixirada u yaqaanaan ee u baxsadeen, oo haddii u yeertaan ay ka dhigan tahay iyagoo ilaahay barye oo kale oo hooshooda loo samaynayo. waxaa ku qoran biduux 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 5 ilaa 6 goor baa lagu celceliyey. bimacnaa jinkii hebelow, jinkii hebelow, jinkii hebelow, bimacnaa wax noo qaba weeyaan. markaasaa lagu xijiyey gabadha magaceedii iyo walaasheed oo dibadda jira magaceedii baa laisku lamaaniyey. waxaa la yidhaahday waxaad u qabataa inanta la yidhaahda xaawo. xaawo ayaa wax qabanaysa. xaawona waa inan ganacsato ah. saa awgeediibaa waxay u sixiraysaa ama u samaynaysaa gabadhan ilaahay subxaana wa tacaala hantida siiyey inay hantideeda la wareegto, say doontay u maamusho. iyada iyo gabar kaloo walaasheed la dhalata ayaa facilka iyo falka isla wataa. ilaahay fadligiisa markii halkaa ay 3 mar 5 mar camal ugu dhadhawaaqay oo biduux 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 uu yidhaahday, ayuu gadaal haddana wuxuu ku soo qatimay magaca gabadha ee ilaahay sixirka ka furay iyo walaasheed oo labadooda sixir ahaan laiskula wada haystay. oo hadalkii loo dhawaaqo la yidhaahdayo waxaas un baahanaysan diidinba loogu talagalay ay soo dhiibaan, ayaa ilaahay subxana wa tacaala meesha ku burburiyey. marka waxaad ogaataan aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala qaarkooda xataa falka sixirka in loo adeegsado. markuu leeyahay biduux biduux biduux, biduux ma aha magac oo jin uu leeyahay ilaahay subxana wa tacaala quraanku ku sheegay ama xadiis nabi ku soo arooray, laakiin waa wax iyaga shayaadiinnimadooda iskula baxsadeen. marka waa arrimaha ugu cajiibka badan. hataa mararka qaarkood waxaad arkaysaa magaalada gudaheedii waxaa lagu kala geynayaa nin iyo naagtiisa dibadda ku maqan ayaa lagu kala geynayaa. labada joogta ee noloshooda isaga raali ah ilaahay ku kalsoon baa lagu kala geynayaa. intaasoo idin waxaa loo sameynaya waa adduunyo doon darteeda. waxaana marka baraarujinayaa
walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan inay isku xifdiyaan weysada. awalan qofka mu'minka waa silaaxul mu'min u hayso waa weysada, inaa weysada isku alaalisaan, adkaaru sabax wal masaa aad akhrisataan, qof walbo rag iyo dumarna u laazimo xalaqaadka cilmiga, uuna la saaxiibo dad uu u malaynayo in ay ilaahay subxana wa tacaala u dhawaasho badan yihiin, markastay lugta u siibataayo ama uu ka mashquula digriga ilaahayna xusuusinaya, ilaahayna ku xirayo. taa baan idiin dardaarmayaa, nafteydii naftiinaba waxaan ilaahay ka rajeynaya ilaahay noo ilaaliyo, ilahay isaga noo ilaali kara. wixii dadaalna inaga ana sameyno. subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayh. meesha ku jira aniga ayaa sheegaya. inantii baa soo kaxeeyay iyadoo korkeedii maskaxdeeda ay bedelan tahay. gurigeeda albaabka laga soo galo ganjeelka weyn hortiisa qayb yaroo meel ku yaalo ubaxyo iyo geedo yaryara baa waxaa la yidhahdaa halka kan baa lagu aasay. inantii baa guriga ku celiyey. waxaan soo qaatay badeel ama waxyaaba wax lagu qodo. meeshii baan qoday. markaan qoday waxaan ugu tagay xirsigaas yar ayaad aragtaan oo bac ku duuduuban. markaan soo saaray bacdii aan ka furay, ayada daartii aan ku soo celiyey iyadoo meesha fadhiisan la soo laabtay. waxaan dalbaday in la ii keeno idan dab ku jira ama dab si aan ugu gubo, ilaahayna uu macnaha u baabi'iyey sixirkaasi. waxaadna ogaataan sixir laguu sameeyey haddii ilaahay uu kuu sababay inaad aragto ama ilaahay ku tusiyaayo. haddaad gubto sixirkaaga meesha uu ku burburaya, caafimaad baa ilaahay kuu soo dejinaya. intaanan gubin ka hor baa warqadii furay. qaadiibaa waxay u sixiraysaa ama u samaynaysaa gabadhan ilaahay subxaana wa tacaala hantida siiyey inay hantideeda la wareegto, say doontay u maamusho. iyada iyo gabar kaloo walaasheed la dhalata ayaa facilka iyo falka isla wataa. ilaahay fadligiisa markii halkaa ay 3 mar 5 mar camal ugu dhawaaqay oo biduux 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 uu yiraahday, ayuu gadaal hadan wuxuu ku soo qatimay magaca gabadha ee ilaahay sixirka ka furay iyo walaasheed oo labadooda sixir ahaan la isku wada haystay, oo hadalkii loo dhawaaqo la yiraahday waxaas u baahanaysan diidinba loogu talagalay ay soo dhiibaan, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala meesha ku burburiyey. marka waxaad ogaataan aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala qaarkooda xataa falka sixirka in loo adeegsado. markuu leeyahay biduux biduux biduux, biduux ma aha magac oo jin uu leeyahay ilaahay subxana wa tacaala qur-aanku ku sheegay ama xadiis nabi ku soo arooray, laakiin waa wax iyaga shayaadiinnimadooda iskula baxsadeen. marka waa arrimaha ugu cajiibka badan. hataa marka qaarkood waxaad arkaysaa magaasanayo qaar lagu kala geenaya labadii xaasaskii iyo waxaa weeyaan wixii ka dhexeeyey ganacsi ee ummado ah. noocyo badan buu leeyahay, laakiin nooca gabadhan lagu sameeyey waxa uu ahaa nooc lagu soo jiidanayay maskaxdeeda, maadaama ilaahay subxaana wa tacaala maal uu siiyey, awlaad wanaagsanna ilaahay uu siiyey, nolosheedana ilaahay u wanaajiyey. noloshii baa loo quuri waayey. waxa sidaa ku samaynayana ma aha qof ka fog, waa qof u dhowaansho badan, aadna ugu kalsoon tahay, weliba ganacsato ah. gabadhii markaan saaray ilaahay fadligiisa 4 maalmood, maalintii 5aad baan daarteedii gurigeeda uga tagay. markii quraanka ku bilaabay bifadli illaahi tabaaraka wa tacaala aayaadka sixirkaan akhrinayay, ayay istaagtay. waxa jirkeeda ku jiray jin ah ilaahay subxaana wa tacaala u jilciyey qalbigeeda ee ka naxay dhibaatada gabadha muslimadda lagu hayo, ayaa yiraahday sixirkii. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalayga muslimiinta waa idin salaamaya meel kastoo aad caalamka ka joogtaan. xalay waxaa idin magac dhabay qiso cajiib ah. inan yaroo muslimad ah sixir loogu aasay gurigeeda, ilaahay sabab iga dhigay in laga soo saaro ama uu ka soo dhammaado. gabadha muslimadda ah waxay ku nooshahay magaalada Nairobi, magaalo ama xaafad ka mid ah. gabadha muslimadda ah waxaan saarayay qur-aanka muddo 4 casho. maalinta 5aad baa ilaahay dhacdadan sababay. allana subxaana wa tacaala uu ku buriyey sixirkii loogu talagalay. sixirkana wuxuu leeyahay anwaacyo ama noocyo dhowr ah. qaar meetida la raaciyo qofka kaw looga siiyo la dilaayo, ilaah baa wax dilay subxaanahu jalla thanaa'u, iyo qaar la jeclaysiinayo qofka kale isjeclaysiina wuxuu doonuu ka sameeyo. kaasi u furantahay waad aragtaan baana ku qornaa. waxaan lagu qoray 2 aayaad oo ilaahay qur-aankiisa ka mid ah iyo magac loogu yeerayay jinka. waxaa aayadda koowaad ku qoran fa in tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rabu lcarshi alcadiim. aayaddaas ayaa 3 mar lagu qoray. waxaa lagu xijiyey wallahu min waraa'ihim muxiit bal huwa qur'aanun majiid fii lawxin maxfuud. 3 goor baa la qoray. kadib baa waxaa loo dhawaaqay magac ka mida magacyada jinka ee sixirada u yaqaanaan ee u baxsadeen
oo haddii u yeertaan ay ka dhigan tahay iyagoo ilaahay barye oo kale oo hoshooda loo samaynayo waxaa ku qoran biduux 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 5 ilaa 6 goor baa lagu celceliyey bimacnaa jinkii hebelow jinkii hebelow jinkii hebelow bimacnaa wax noo qaba weeyaan markaasaa lagu xijiyey gabadha magaceedii iyo walaasheed oo dibadda jira magaceedii baa laisku lamaaniyey waxaa la yidhaahday waxaad u qabataa inanta la yidhaahda xaawo xaawo ayaa wax qabanaysa xaawana waa inan ganacsato ah saa awgeed